maareeyaha hay'adda dekedaha Somaliland Cali Diiriye Axmed ayaa waxa uu munaasabad casho sharaf ah magaalada Berbera ugu sameeyay kooxda ku ciyaarta magaca DB Well ee Berbera. Munaasabadani ayaa ujeedkeedu ahaa in la maamuuso kooxdani isla markaasina lagu dhiirigeliyo kaalmaha fiican ay kaga jiraan ciyaaraha gobolka Saaxil iyo sidoo kale kuwa gobolada Jamhuuriyadda Somaliland. Waxaan ugu horeynba halkaasi ka hadlay macallimiinta iyo maamulka kooxdani aanay si weyn ugu mahadnaqeen maareeyaha gudaha hay'adda dekedaha Somaliland. maareeyaha runtii gelan marka koowaad u mahadnaqo waa taariikhda kubadda cagta kooxdu inta magaca DB Well ku ciyaaraysay markii ugu horeysay ee maareeyuhu inacasumo labada soo bilaabo 2019 markii kooxdu ay magaca DB Well la wareegtay ilaa maanta oo muddo martiqaadkeenan caawa waxaan marti u nahay maareeyaha dekedaha Jamhuuriyadda Somaliland maareeyo waad ku mahadsan tahay inaad soo xusto inaad soo xasuusato inaad waqtiga qayb ka mid ah siiso inaad teamka DB Well Berberana aad noqoto mas'uulkii dhiirigeliyay soo garab istaagay kulay waxay Soomaaliya ninba abaalkiisa kan ugu bedeli beerka ogsooni mahad celinayna maareeyaha martiqaadka caawa lahaa casho sharafteena maareeyo waad ku maadsatay intaa ay shirkadda qalaadi joogto maamulka dekeda maareeyii xagga lagu matalay dawladeed waa maareeyii koowaad aan arkay xagga dhalinyarada wax qabadkeeda intii aan ciyaaraha arkay waliba kooxda ku ciyaaraysay marka hore magaca dekeda ku ciyaari jirtay haddana ku ciyaarta magaca shirkadda DB Well maareeyo waa mar koowaad iyo mar labaad iyo mar saddexaad waad ku maadsantay waa ku leeyahay martigelinta dekedaha Somaliland oo adiga ka mas'uula DB Well aad ka mas'uula waxaan jecelahay dhiirigelinta iyo cashada iyo martiqaadka aad noo sameysay inaad halka ka sii wado oo haday maanta kooxdu badisiya hadaanay badinba aadna garab taagnaato hadii Ilaahay ka dhigay insha Allah ta'ala waxaan mahad gaar ah u direynaa maareeyaha hay'adaha dekeda Jamhuuriyadda Somaliland Cali Diiriye Axmed oo isagu lahaa fikirka ah inuu kooxda DB Well amba kooxda magaca dekeda ku ciyaaraysa uu dhiirigelin cashada iyo kulanka isbarashada oo isagu u sameeyo kooxda markaan maareeyo kala hadlo kooxdan wax weeyaan horyaalkii gobolka Saaxil taariikh badan bay soo martay waqti loo oran jiray maxay ahayd dekeda Berbera oo ciyaartooy fara badan oo maanta waaweyn oo qaar daayihiin ayaa soo martay anuu ka qayb baan ahaa kooxihii soo bedelayay magaca dekeda Berbera ku ciyaari jirtay dhalinyarada magaca DB Well ku ciyaaraysa magaca dekedaha ku ciyaaraysaba way ku garab taagan tahay way waxay ka tarjumaysaa mas'uuliyiinta loo baahan yahay inay qaranka u shaqeeyaan qaranku waa da'yar weeye waa waxa soo koraya nin walba intuu dhalinyarada gashado ayaa isla la gelin doonaa koox horyaalka gobolka Saaxil aad baan ugu rajaynahay inay sidii berigii hore inay xaq hore ma doonto ama insha Allah qaad doonto بإذن الله تعالى وعن كل مرات كما نقصينا شرفتنا حزومتنا حفلة وسوكين يري ماريها على ديرية وأن يراها وما تيرس أكرر وحبض إن لفهنسن وحبض يداريين قالوا حنا يكون حضر وحياة وميم كوتاي عايزونا halkaasi ka hadlay maareeyaha hay'adda dekedaha Somaliland Cali Diiriye Axmed waxaana uu ka warramay muhiimadda ay u leeyihiin ciyaaruhu dalka halkan oo mahadnaqaya kooxda DB Well Berbera hay'adda dekedaha Somaliland waa madaxii guud ama odaygii guud ee shirkadda iyo guud ahaan dekedaha qarankeena uu leeyahay waxaan halkan uga mahadnaqayaa oo runtii aan ku bogaadinayaa magaca iyo sumcadda iyo sharafta iyo guulaha isdaba jooga ee kooxdani ay ku caanbaxday ragga keenay ee soo hooyay ee xubnaha kooxda koow ka yihiin macallinka kabtanka maamulka iyo guud ahaanba shirkadda DB Well Berbera runtii caawa aniga martiqaadkan inoo sameeyay ujeedadiisu waxa weeyaan waa isbarasho iyo dhiirigelin inaan kooxda ku maadaama aynu tartankii kaalin wanaagsanna kaga jirno si moraalkii iyo muxuu ahaa dhiirigelintii kooxda aynu kor ugu qaadno
anigaa kabtanka la hadlay oo inaan kooxda is aragno dhiirigeliyana oo aan kulan cashaa ku kulanno codsaday. sideedaba kubadda cagta marka aynu ka hadlayno waa luuqad caalamiya, waa waxaan gaar u ahayn koox ama cid gaara. waxa weeyaan luuqad caalamiya oo dadka isku keenta, waxay midaysaa qalbiyada dhalinyarada, waxay dhistaa jidh caafimaad qaba, maskax firfircoon iyo dabeecad ku dhisan adkaysi, samir iyo wada shaqayn. waxaan idinkula dardaarmayaa in aydin akhlaaqdii, sumcaddii, magacii iyo adaabtii wanaagsanayd ee aad awalba ku caanbaxdeen ee aad ku kasbateen intaasoo guulood iyo intaasoo koob inaad sii joogtaysaan, inaad ku faraadeegtaan. insha allah hadduu alla ka dhigo anigu mar walba waa idin garab taagnaanaya maamul ahaan. waxaan idiin ballan qaadayaa in aan kooxda dhiirigeliyo, in iminka iyo mar dambaba insha allah hadduu alla ka dhigo aan garabkiina ahaado.